Soomaalidu ma ahan kuwo xora. Soomaalidu xor ma ahan. Waxaana ugu wacan madaxdooda. Markaan kula yahay Soomaalidu xor ma ahan. Ma ahan Soomaalida in weerar lagu soo qaaday qori ah. Balse Soomaalida waxa lagu soo qaaday weerar maskaxiyan ah. Gumaysi maskaxiyan ah ayaa lagu soo qaaday Soomaalida. Waxaana ugu wacan dadka madaxda u ah. Tusaale yarna waxa ugu filan dadka musharaxiinta Soomaalida ah. Maanta waxa u yeeraya oo shirinaya Kenya. Waa Kenya oo waxa waaye caloola baa waxa waaye faraha ugu yeeraysa musharaxiinta Soomaalida. Waayo qof kasta waxa waaye hankiisu intuu la eg yahay ayuu tallaabsadaa. Marka meesha waxa ka cad Soomaalidu waxa waaye inay la hareen madaxdoodu. Dhanka kale madaxweynaha Mareykanka odaga waalan waa naqleedin maalmahan oo dhan wuxuu aflagaada cad Soomaalida. Maanta ugu dambeysay wuxuu lahay Soomaaliya waa meel quruntay, waa meel wasaqaysan, waa meel dambiyo culus ay hareeyeen. waa dad waxa waaye nolosha ka dhacay ayaa ka yimaada ayuu leeyahay. Waa dad macnaha wuxuu leeyahay musuqmaasuqa meesha ugu sareysa ka gaaray. Ma jirto hal madaxweyne oo ka hadlaya ama ka jawaabaya eragaas oo ka difaacanaya dadkiisa iyo dalkiisa. Marka waxaan is weydiiyey Soomaalidu ma xoroobin. Ma isa xoroobin markii gumaysigii caddaay ay ka xoroobeen ama gumaysigii caddaa oo iska tegay. Waxaa bedelay dagaal fikri ah iskaxda in dadka lagala dagaalamo. Waayo waxa la goynayo oo laga tashanayo oo maanta Kenya waxa waaye ay doonayso waa masiirkii ummadda Soomaaliyeed waaye. Nimankaasu waxay iska dhigaan ama isku haystaanba ayagu inay qaranka badbaadinayaan. Laakiin waxa ay iib geynayaan oo meel kasta ay la fadhiyaan oo shisheeyuhu uu falaqaynayo horta waa masiirka ummadda Soomaaliyeed. Runtii waqti waxaa jirtay Soomaalida madaxdeedu aysan u haysan ama aysan marnaba aysan qaadan karin madaxweyne Afrika ah inuu la mid yahay ama u dhigmo. Tusaale yar madaxweynihii Mareykanka markii la wareysanayay ee ahaa Bush baa waxa la weydiiyey su'aal ah madaxda Afrika waa kuma madaxweynaha aad ku dayato. Markaas wuxuu ku jawaabay waxaan ku daydaa oon iska qaab ahaantiisii iyo xukunkiisii iyo waxa waaye aan ku daydaa Siyaad Barre. Sida ayuu yiri. Dayasho iska dhaafe maanta waxa waaye xitaa waxa la la'ay madax ka fal celida waxa waaye aflagaadada baahsan ee ninka waalan uu geysanay Soomaalida u geysanay. Taas waxa iiga sii daran Kenya oo waxa waaye dal dhan nooga maqan yahay. Siyaasad ahaan aan ku dagaalsannahay biyo nooga maqan yihiin haddana inay ka hadlaydo masiirkii ummadda Soomaaliyeed. Waa nasiib darro weyn. Waxaanse bogaadinayaa madaxweynaha loo han weyn yahay waxa waaye shacabkuna taageeraha buuxda u hayo ee diiday inuu tago shirka Kenya. waxa waaye waa bogaadinayaa markii horena dalka dhagartooda iyo hagardaammadooda ayuu arkay. Soomaaliya waxa ugu darnaay oo ay lahayd waxay ahayd laba gumaysto waxa waaye aan wax caaqiba aan lahayn oo dalku waxba uusan ka faa'iideyn. Waana Kenya iyo Imaaraad. Labadan inta gartay ayuu corday. Laakiin maanta waa ka howlgalaan Soomaaliya meel kastaba. Waxaanu leenahay xaq Allah la fahansiiyo. Waxaanu leenahay xaq Allah na fahansiiyo. Kale waxa waaye Soomaaliya waxa waaye rajo badan kama muuqato laakiin waxa waaye Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa waaye nooca wiil cali. Bilaa tawfiiq.